yaa kuu sheegi karaa in cidda aad ugu kalsoonida badan tahay ay tahay cadowgaaga ugu weyn. Yaa filan lahaa in sarkaal sare oo sirdoonka Ingiriiska ahi uu muddo 20 sano ah xogtii qarankiisa u gudbinayay Midowga Sofiyeeti. Sidee buu nin Ingiriis ahi ugu dambeystii u noqday geesi qaran oo Raashiyaan ah, halka dalkiisuna ay ku magacaabeen khiyaanoole qaran? Sheekadan waa mid dhab ah, waa mid gilgishay dunida sirdoonka. Waa sheekada laba kaadlihii iyo laba wajiilihii labada dhinac ka shaqayn jiray ee ugu caansanaa qarniga 20aad ee lagu magacaabi jiray Kim Philby. Waa nin wajiyo badan lahaa oo dunida tusay in kalsoonidu ay tahay hubka ugu halista badan ee cid loo adeegsado. Mawduuceena caawa waxaynu ku soo qaadan doonaa sheekada ninka aynu soo magacaabnay ee loo yaqaan Kim Philby oo ahaa laba kaadlihii ugu caansanaa xilliyadii qarniga 20aad. qaybta koowaad waxaynu ku soo qaadanaynaa dhalashadiisii iyo bilowga noloshiisa. magaciisu waxa weeye Harold Adrian Russell oo ku magac dheer Kim Philby. waxa uu ku dhashay sanadii 1912 magaalada Ambala ee dalka Hindiya xilligii Ingiriisku uu gumaysanayay. aabihii waxa uu ahaa diblomaasi aqoon-yahan muslimiinta wax badan ka qoray, halka uu isagu ahaa wiil caqli badan oo jecel siyaasadda iyo su'aalaha adag ee xidhalayaasha ah. markii uu gaadhay da'dii jaamacadda waxa uu galay Cambridge University. ninkani waxa uu ahaa nin la dhacay fikradda shuuciyadda oo aad u jeclaaday. waxa uu aaminsanaa in mustaqbalka iyo cadaaladda dunida ay gacantooda ku jirto Midowga Sofiyeeti, aanay yihiin dadka keliya ee cadaaladda dunida u horseedi kara. intuu weli ardayga ahaa waxaa si qarsoodi ah ula soo xidhiidhay sirdoonka KGB ee Midowga Sofiyeeti. waxay ka dhigteen basaas, balse ma ahayn basaas caadi ah. waxa uu ahaa maskaxda ugu sirta badan ee Ruushku adeegsadeen. qaybta labaad waxaynu ku soo qaadan doonaa goormuu ku biiray sirdoonka waddankiisa ee MI6 isagoo weliba hore ugu jira sirdoonka KGB ee Sofiyeetka. markii uu dhammeeyay jaamacadda, Philby waxa uu bilaabay shaqooyin kala duwan ilaa ugu dambeyn uu si toos ah uga mid noqday hay'adda sirdoonka dibadda Ingiriiska ee lagu magacaabo MI6. waxaa lagu tiriyaa nin leh maskax degan, af gaaban oo dadku aad ugu kalsoon yihiin, caqli badan oo shaqo badan. cidina ma ogeyn in ninkaasi uu si qarsoodi ah ugu shaqaynayo sirdoonka cadowga ku ah Ingiriiska iyo reer galbeedka ee KGB-ga Sofiyeetka. sanadihii dagaalkii labaad ee adduunka, Philby waxa uu awood u yeeshay inuu gaadho jago sare oo ka mid ah hay'adda sirdoonka Ingiriiska MI6 ilaa laga dhigay madax waaxeed. waxa uu awood u yeeshay inuu maamulo howlgallo sirdoon oo qarsoodi ah. waxa uu ogaaday siraha ugu qarsoonida badan ee NATO, Britain iyo Mareykanka. laakiin halkii uu ka difaaci lahaa dalkiisa iyo xogtiisa, waxa uu xog walba si qarsoodi ah ugu diri jiray Moscow. qaybta saddexaadna waxaynu ku eegi doonaa ku biiristiisii iyo ka mid ahaanshihiisii kooxdii lagu magacaabi jiray Cambridge 5. Cambridge 5 maxay yihiin? Cambridge 5 waa 5 nin oo isagu 5 ku yahay oo ahaa 5tii basaas ee laba kaadlayaasha ahaa ee sirta iyo xogta u gudbin jiray sirdoonka KGB-ga Sofiyeetka. Kim Philby ma ahayn kaligiis, waxa uu ahaa maskaxda dhexe ee koox loo yaqaano Cambridge 5 oo dhammaantood ka wada baxay jaamacadda Cambridge University ee Ingiriiska ku taalla. kooxdaasi waxay kala ahaayeen isaga laftarkiisa oo ahaa hogaamiyaha kooxda ugu caansan, iyo Guy Burgess, iyo Donald McLean, iyo Anthony Ballanty, iyo John Carncross. kooxdan waxay u gudbin jireen KGB-da xogaha ugu muhiimsan ee reer galbeedku hayeen muddo ka badan 20 sano. waxay sabab u noqdeen in howlgallo badan la fashiliyo, basaasiin badan la qabqabto, qaarna la dilo. goormaa la ogaaday oo laga shakiyay Philby iyo kooxdiisii, amba isaga lafti ahaantiisa goorma laga shakiyay oo la ogaaday inuu basaas laba kaadla yahay? markii dagaalkii qaboobaa oo bilaabmay, waxaa soo baxay tuhun fara badan oo ku saabsan xog baxaysa, basaasiin la leynayo, sida la fashilinayo. dad badan ayaa la laayay. basaasiin badan oo reer galbeedku lahaayeen oo Ingiriisku lahaa ayaa la qabqabtay sababo la xiriira xogta ninkaas bixinayo. sirdoonka Ingiriisku waxay bilaabeen inay isweydiiyaan yaa bixiyay xogta. cidina ma ogeyn in jawaabtu tahay Kim Philby, ninka ay ugu kalsoonida badan yihiin. markii ugu dambeysay cadeymo ayaa soo baxay, laakiin weli lama hayo xog rasmi ah oo si fiican u sheegi karta
in cidda xogta bixinaysa isaga yahay. Philip waxa uu dareemay in ciddii sirtiisa la helo ay shaashada ka bixi doonto haddii la ogaado isagana inuu yahay maskaxda ka dambaysa waxyaabaha fashilmay oo dhan. haddii lagu ogaado inuu isaga yahay in gacmila lagu qaban doono. sanadkii 1963 isagoo ku sugan Beirut waxa uu si qarsoodi ah uga baxay magaalada Beirut oo waxa uu cararay dhanka Moscow. Ruushka waxaa si geesinimo loogu soo dhaweeyay caasimadiisa Moscow. waxaa la sii guri lacag darajo waxaana loo aqoonsaday geesi qaran. ugu dambeyntii wuxuu ku geeriyooday dalka Ruushka sanadii 1988. ugu dambeyntii King Philip waxa uu ahaa nin laba wajiile ama laba kaadla ah oo ugu caansan qarnigii 20aad. hal dhinac saaxiib ayuu la ahaa walaalihii iyo sirdoonka Britain iyo NATO, dhinaca kalena cadowbu ku ahaayo wuxuu u shaqaynayay sirdoonka Soviyetka ee KGB loo yaqaan. waxaanu ku soo gabagabeynaynaa in cid aad aaminto amba cid aad u kalsooni badan tahay marmarka qaarkood ay noqon doonto cadowgaaga koobaad. intayna mawduuc kala mid ku kulmi doono waxaan leeyahay nabaday. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.